nabadgelyo. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. sharafi korkiina ha ahaato. ramadaan kariim. waxaynu ka warami doonaa rabbi hadduu qadaro astaamaha ama calaamadaha lagu garto in qiyaamuhu uu soo dhowaaday, waxaana miiska inoo saaran rabbi hadduu qadaro masiixu dajaal. soo bixidda masiixu dajaal waxay ka mid tahay calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto in qiyaamuhu aad u soo dhowaaday. allah naga badbaadiye, soo bixiddiisu waa mid dhacaysa oo uu shaki ku jirin. waxaynu ka warami doonaa waxyaabo ku saabsan masiixu dajaal. markuu dajaal soo baxo, waxaa sii daba socda dhammaan calaamooyinka kale ee qiyaamaha si isdaba joog ah. masiixu dajaal waa wiil yar ama shakhsi ibnu aadamka ka mid ah, yacni waxa uu ka mid yahay carruurta nebi aadam calayhi salaam. waa nin dhallinyaro ah oo timo adag, labadiisa indhood mid baa soo taagan. xabiibka sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku tilmaamay inuu u ekaa nin xilligii nebiga noolaa oo lagu magacaabi jiray cabdulcuza binu khada. dajaal waa uu soo bixi doonaa iyadoo bini'aadamka oo dhan ay hilmaameen, yacni dadka quluubtooda uu ka baxay. ma soo bixi doono dajaal isagoo la xasuusanayo ama dikrigiisu uu jiro. dajaal dhib iyo fidna ayuu la soo bixi doonaa. dhulka wuxuu baaqi ku ahaan doonaa sida uu xabiibka sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay 40 beri, oo maalinta koobaad ay sanad u dhiganto, maalinta labaadna bil ay u dhiganto, maalinta saddexaadna isbuuc, maalmaha kalena nebiga sida uu sheegay waa sida maalmaha aynu maanta xisaabsano oo kale. masiixu dajaal allaha inaga haye wuxuu wada mari doonaa dhulka oo dhan markii laga reebo Makka iyo Madiina. Makka iyo Madiina waxaa ilaalinaya malaa'ig uu rabbi u qadaray inay ilaaliyaan, laakiin intuu kor yimaado bay gilgilan doonaan, oo wixii shaydaan sida gaalada iyo munaafiqiinta dhammaan way ka soo bixi doonaan Makka iyo Madiina. khaas ahaan waxaa la sheegaa in Madiina ay zaa'id u gilgilan doonto. nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, nebi ma jirin ilaa ummaddiisa waxa uu uga digay fidnada uu la yimaan doono ama la imaan doono masiixu dajaal ama beenaalihii cawarka ahaa. nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, waxaad ku garan kartaan ishiisu waa cawar, labadiisa indhood waxaa ku qoran kafara oo laga soo gaabiyey kafara ama wuu gaaloobay. waxaad ku garan doontaan uu yidhi nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam, waxa uu sheegan doonaa rabbinimo. rabbigiinuna cawar maaha ee ha ku kadsoomina, yacni iska ilaaliya beenaalahaas. masiixu dajaal dhulka wuu wada mari doonaa sida roob dabayl xoog badan ay ku dhufatay oo kale. dad buu u imaan doonaa sida uu xabiibka sallallahu calayhi wasallam sheegay. wuxuu dhihi doonaa irumeeya, way rumayn doonaan. subxaan allah. wuxuu la hadli doonaa samada, uu ku amri doonaa in ay roobka ay haysa dhammaan ay dhulkaas ku soo shubto. samadii ayaa roob keeni doontaa, dhulkii ayuu amri doonaa, oo waxa uu amri doonaa dhammaan wixii dalag iyo nafci ku jira inay soo baxaan. marka ay soo baxaan, dadkii ayaa barwaaqo wada gelaya. kadib waxa uu u imaan doonaa qoom kale, oo waxa uu oran doonaa irumeeya, rabbigiin baan ahay. markaas bay dhihi doonaan qoomka kale, inagu rabbigeen cawar maaha ee beenaalihii baa tahay, kumana rumaynayno. sidii hore oo kale samada ayuu la hadli doonaa masiixu dajaal, oo waxa uu oran doonaa dadkan imaysan rumayn ee roob waxba ha siinin. dhulkii buu la hadli doonaa oo wuxuu dhihi doonaa waxba ha siinin oo nafci iyo tamraad waxba ha u soo saarin dadkan, sababtoo imaysan rumayn. dadkii waxaa la sheegaa inay baahi u dhiman doonaan, laakiin dhanka alle ayaa wax u jira. sida aan la wada soconno, dajaal waxaa daba socda dhammaan wixii nafci oo dhulka rabbi uu dhigay. fidnadiisu waxaa ka mid ah si uu ilaahnimadiisa dadka uga dhaadhiciyo ama fidnadiisa dadka uga gado. nin dhallinyaro ah buu qaban doonaa, waxa uu ku dhihi doonaa, ma i rumaysan tahay inaan rabbigaaga ahay? inankii wuxuu dhihi doonaa ama dhahayaa, ma rumaysni, waxaa tahay beenaalihii rasuulka uu inooga digay. dajaal wuu kala jarayaa inankii, kadib buu leeyahay soo istaag ama isku soo dheg. inankii isagoo dhintay buu qudrada alleh sidii hore oo kale uu naqanayaa. markaa buu leeyahay, ma i rumaysan tahay hadda? markaa buu inankana oran doonaa, hadda ayay ii xaqiiqsantay inaad tahay beenaalihii uu rasuulka inooga digay, waxaa tahay dajaal. dajaal wuxuu isku dayi doonaa mar labaad inuu dilo idinka alleh
ma dili karo oo awoodiisaba ma gaaraysa meeshaas sida la sheegay dadka ugu badan ee dajaal raaci doona waa yahuuda waxaana lagu qiyaasaa marka koowaad inta raacaysa 70,000 oo yahuud ah dajaal in badan buu dhulka joogi doonaa oo lagu qiyaasay 40 bari dhulka ayuu fasahaadin doonaa dhib ayuu u geysan doonaa intii iimaanka xumayd way raaci doonaan allah naga nabadgeliye kadib sida ay hawshu u socoto waxaa soo bixi doona nabiyullaahi ciisa calayhi salaam nabi ciisa ayaa soo degi doona wuxuu ku soo degi doonaa manaaradda dimashq yacni caasimadda suuriya nabi ciisa marka uu soo degayo labadiisa gacmood waxay saaran yihiin laba malag garbahooda nabi ciisa wuxuu raadin doonaa dajaal ugu dambayn wuu heli doonaa waa uu dili doonaa masiixu dajaal oo waa laga adkaan doonaa balse isagoo dunida oo dhan fasahaadiyey intii xumaydna ay raacday rasuulka waxa uu ku dardaarmay haddaad meel ku maqashaan masiixu dajaal ha suugina ee ka carara sababtoo ah fidnada uu wato maaha fidno aad u yar waxaynu ilaahay ka magangelaynaa fidno walba oo gaal uu wado fidno walba uu wado ruux xun waxaan idin leeyahay ramadaan kariim intaan ku kulmi doono qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi